إن إيجو دانسيغا لهاين إيه إن عفرت الديار جروبيس أي كلا لجوريين لكن حبت الصومالي ده له الرئيس شلي وات عفرت الديار جروبيس أو ديار جروبي قدام بيسي كجرت يعني أنا وين ربيدين صومالي ده دايس قلادي مركع عفر هاي سنة كان نقول وحكوي اللي قليا ودلع على ماش وحكوي بقلي قضية ضادي واساس قضية إنه بقلي كريم يكو عيوقين قال أن أوي إنه عفرة ما شرت تي إريتريا وأوي سان وندل منها هي أيضا بهيسا تي جبوتي قد وكالة صارت شو أين ديك تي إثيوبيا وطن حتى لا جيس بكون عايزة دان كان تكري وقد أنكوهاي سموك تكري جينا نبض من حتى له هرب ولا نتهن دقالك وقوية يقول ها أورامنا تولوين بعد أحمره حاجة أواشي يقول كاس تولوين بيجينا أحمره وقد على سكيا ساري أورما كهي ستلا حتى كقبصتي أورما حتى كقبصتي عفر مركب ميل أفيو أضيع تلحب أو تليان كل مرة ميل أفيو عفر سنة كان بجرته كوسو دو رويال oo guryaha naansan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waraas qabow royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sareyso ragna soo hanaashay waa royal shirkadda dhismaha ee royal modern homes waxa ay dabaqyo mataanaha twin towers ka dhisaysaa xaafadda Parklands ee magaalada Nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurtu ay ku ciyaarto masaajidkii gymkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxaa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من صاحب بالكوسو دوادا برنامج كان وستة سوغا داوانيسان كرامada TV iyo RR TV barnaamijka qaybtan adduunka baa wada loo galaado waxaan ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay shalay maantaba sida aan ka helayno deegaanka Soomaalida gaar ahaan galbeedka gobolka City canfarta ama maleeshiyadka canfarta ayaa weerar aad u xoogan soo qaaday hadaba waxaan eegi doonaa bal weeraradaasi shalay maantaba ay soo qaadeen canfartu iyo sida xaalku yahay waxaa leegi doonaa sidoo kale tay weeraradaasi ay canfarta soo qaadeen iyo saameynta ay yeesheen dhinaca Soomaalida maxaa iyaga soo gaaray maxaa guul oo ay gaareen arrimahaas ayaan eegi doonaa haddii baa wada loo ogolaado bil ka hor ayay ahayd markii weerar nooc oo kala ah canfarta iyo Soomaalida ay dhaxmareen waxaa la jooga saaxiibkii Cabdiraxmaan oo isha ku hayay wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka canfarta iyo Soomaalida oo soo noqnoqday iyo halka maanta xaalku tahay Cabdiraxmaan soo dhow wandhaw waata bal canfartii marka la weerar soo qaaday bil waxa weeye waxa ka hor baahayd markii aan ka warramaynay dagaalka canfarta iyo Soomaalida u dhaxaysay dagaalkaas oo Soomaalidu ay qaaday hadda canfartii ayaa weerar soo qaaday oo malaha kii hore doonaysay inay bal xogaa inay argudasho ay samayso maxaa bal weeraradii shalay soo qaadeen iyo maanta u dambeeyay waranka hayna فرت بسم الله الرحمن الرحيم وشالي حلي صلاة الصبح ولي للتكنين وقت دقالك عفرت إيه سوماليدو ما دماغو موات waa iska socdaa waa kolba meelba waana jiha balaaran yani inta ka galbeed ilaa ka waqooyi ah oo gobolka City iyo canfartu xad ka leeyihiin yaa bari ilaa galbeed yaa qadhown la isku hayaa waat oo maxaan ku dhahaayay tuulo kasta labada iskaga aadanay dagaalaysa dagaal marka kolba jiha ka bilowda weey horaantii dhul fara badan oo la sheegi kara lagama qaban laakiin canfarta yaa in laga gacan sareeyay ay xogo inagu soo gaarayeen walow rag fara badan oo new police oo ciidankii deegaanka ahna ay meesha ku ahaadeen laakiin dhul aan tira badnayn in laga qabtay baa la sheegay horaantii diyaar garoow marka canfartu intii ku jirtay ciidamada Soomaalidu laba aad uma kala saari karo in iyagu daansiga lahaayeen iyo in canfarta oo diyaar garoobaysa ay kala lugorayeen laakiin xabadda Soomaalida la horeysay shalay waata canfarta oo diyaar garoobaysa oo diyaar garowgi u dambeysay ku jirta yaan anagu weerar rabeeyeen Soomaalida dhahays hay lama sagaran karo inuu weerar qorshaysan Soomaalidu bilowday laakiin canfarta xabadda waa laga horeeyay shalay marka macnaheedu waxa weeye Soomaalidu waxay war ka hayeen inay diyaar garoobaysay war ka hayeen say Soomaalida warka inagu soo gaarsiinayso iyadoo diyaar garowgi u dambeysay ku jirta yaa 5 goobood laga weeraray waat 5 aag yaa laga qabsaday muqarbaash ka mid yahay xoori ugu weyn tahay magaalo weyn Soomaalida qabsanaysa ha Soomaalida qabsanaysa
waata shan tuulo oo tuulooyin ah oo xira iyooyin la fadhiyay ah yaa laga qabtay waata magaalada xoori oo kale dhammaan muuqaaladooda la soo dhigay dad maxaabiis oo laga qabtay waa la soo dhigay xoori waa magaalo weyn waata oo qaabka ay u dhiseen iyo qaabka ay u magaaleeyeen aad maleynay waa magaalo intii furin laga dhigay yacni iskuulaadka oo kale loo dhisay oo dhammaan calanka cafarta lagu buufiyey oo iskuulla waxaad moodo magaalooyin bay ka sameeyeen marka deegaameyn caadi ay sameeyeen degaamin caadi ay sameeyeen waata nimankii reer city xoori oo tuulaha ay ugu dambeysay way garan waayeen markii magaalo dhisantay u tageen waxay ku leeyihin maasha allah waddanka waa noo dhiseeneedahayaan waata dhul ay dhistay yaa lagala wareegay cafartii waata shalay marka iyadoo shantaa aag laga qabsaday iyo gobol ku dhacay waata saaka marka muddo intee dagaalku socday shalay ilaa galabkii salaada subax ka hor hiraaba la isku hiirtay moogta ilaa galabkii yuu socday waata maxaabiis heer la kala qabsado dhul la kala qabsado waad garan kartaa waata hub ma jira hub waa la kala qabsan oo dee meel nin la qabtay ninku hub watay moogta nin nool meel lagu qabtay hub buu watay gaari buu watay dhashiig buu watay shilku watay marka meel nin la qabtay hub laysma weydiiyo iyo dhul laysma weydiiyo marka ninkuuba carari karay dhulku laakiin iyo gaarigu ma carari karaan sabab gaari ninka eri lahaa ninkii la qabtay ugu dhac jiray waata hub fara badan oo laga qabtay cafartii shalay intaas intay gaadhay yaa la kala nastay waata maanta maxaa dhacay marka saaka alasaydi iyo haddana cafartii mar kale isu soo xabataatay iyada marka saaka weer soo qaatay saaka iyada weer ka soo qaatay saakana inta hadda ilaa iyo wararka aan helayno iyadaa la durkiyey waata meel banka hoo yaala la dhaho oo aan halgeeda lahayn ma ban caadi ah ban caadi ah xiita dhan ma dhigato meesha qushanta yaa hadda la isku farasaa ha xiita dhan ma dhigato waata bankaas ninkii la geliyo mid ka hadhi maayo waata ninkii la geliyo mid ka hadhi maayo waata ninkii maxaan ku dhahaayay lagu riixayana hadda meel uu carama hayso waata meel uu carama hayso bankaas hadda la isku haystaa agtiisa haddii bankaa la kala qabsado waxaa meel dhowr iyo 10 kilomitir ka fogeyn jirta andhuufo magaalooyinka weynaa lagu taamiya cafarta haysatay ee degmooyinka waata degmadii cundhuufo yaa soo loogu sadqeeyay dhun yar iyo daymeed yaa la soo celin haddii taa la qabtana degmooyinkii kale iyagana culayska la saari sanadkan waxaad moodaa in farta caalsaaraha laga haysto sanadkan siba faalku uunan iyadoo la shaqaynayn xidigoodii aan toosnayn ma maqashay weliga sanadkan xidigooda ma toosna marka faraan baa la saari dada in baa laga rujay marka bankan haddii laga durkiyo waxa weeye tusbax furtay candhuufo waxa weeye gacanta ku jirta waata candhuufo istiraatiijigii laga difaacayay oo dhan waa dhulkan la qabtay waata banka haddii laisla dhaafo candhuufo gacanta ku jirta waata marka qolada canfarta iyaga xagga laga haystaa sanadka hadda waxa weeye waa si un bay sanadkan way jurucsan yihiin meel aan laga daaqin bay ka daaqeen marka sanadkoodii ma aha sanadkoodii ma waxay bilaabeen xisaab xuno casabot maxaan ku dhahayay dakhilbot iyo maxaan ku dhahayay tan Ethiopian isku daraynaa wili waata oo dekadii dakhil ee Djibouti iyo dekadii casab ee Eritrea annaga balaandhaaraha geeska Afrika bay canfar baa haysa hay waxayna fahmin in yarba meel ku jirto in yarba gaalkeeda loo sarcin marka ciid bay daaqameen xaqii bay jihadu dareen Djibouti hay Ismaaciil kii taliya ku xigeenka guud oo canfari ah buu gobolkaas hadduu hal canfari oo jabhada gab ugu dhaco wadanka gudihiisa adiga anigu midkeen baa adduunka jooga waa saas helicopter intuu qaado suuqa dhowgahay iyo hal Ethiopia ku soo firxada iyo hal diliya hal qabto ka dhigay waata waa jabhada kaliya hal maalin lagu soo afjar hal maalin saas u tabariyaan marka one day dhul ay ku gabadaan ma inay maan u malayn nin iyaga ka mid inuu dayday hal maalin wasgaranayaan taasaatkooda garanaya candhuufa fadheeda si wayeen yaa hal maalin lagu soo afjar waata tii Eritrea soo laash asaga loo sheekaysaninba uun hal siibay kartam olole abiya yimid waata abiya yimid
عيدون عفر وحان كده عيديا أحماره واد سيد أحماره ولا أحمر وريس أحماره دول إنسان واد إحنا سوق وجهي سؤال هذا وكذا وانا ياهم تهيأ لا ملا شيء بالله كسر عفر مركز سنة كذا ما إن والله ماشي ذي كوكت واد والله يعني أنت ينشري يا أتليه واسا بغيت راك عمد حساب على تتابعني بجري موك واساس أود بان شيئا يوان مدوبي يحيى هذا سميسو بس Soomaali galbeed baa Soomaaliya ku beeri lahayd marka waxa Itoobiya ka shaqeyn karin bay galeen waxaan geeska Afrika oo dhan ka shaqeyn karin waad Djibouti Afrika go'ay maxaa soo hadhay gobolka City in ka yar baa soo hadhay waad Eritrea ay ka go'day Afari maxaa soo hadhay waad in yaro Tigray oo sarsar Mali iyo in Carab ay isku soo hadhay waasaas wadan kasta inta ku jirta muhiim bay u tahay hada bal Itoobiya Soomaali galbeed ka go daba qalaalina saasan bay yeelan waasaas qolada kali oo laga qofi karo bay yeelan moognaay waasaas wadan walba marka sida uu hadda yahay yuu ku fiican yahay yuu ku joogi karaa buu islaahay isaga salabman iyagiina saddex wadan bay qodeeyeen afar farsamo xumadeeda waasaas saddex wadan ee mid walba dabada ka qodeeyeen waasaas hadda mid walba hoos uu dib ugu dhuftay sanadkan marka afar boqortooyada mid maqashay boqortooyada juraak boqortooyada aad farsamo fiican u tay xoog badnay talada ma ka xumaatay waasaas bal adoo hal dalba juraan meel wada joogta arag in dasaari mees amar magaxay ku socdaa asla anfartu waxay isiriheen xamaara bartaas u dhaqaaqday oromana way midoobi Soomaalida dawada kula jirta Tigrayna waxa fardheerida noqday qadda ka saaray dad oo dhan ee bini aadamkii oo dhan isaguna dab ku dhaji idinka maxaa idin naf ah waasaas ma afartan riyaha raacraacday timaha fiiqfiiqane foolkaanada ag taagan ay ya hadii Ethiopia minority way noqon meel dabada la gala waasaas abiyana waa hoos wuxuu sheegay waa khaain wuxuu ku yiri afartiini soo kasbada oo dekada gacan ku soo dhigay waad marka abiyana dhigtu soo wuxuu sheegay iyaga wuxuu tijaabinayay moojiye waasaas waxay qaateen go'aan ah in afarism wax la dhaho ay sameeyaan waad ma xumaateen oo haday anfar inteeda is urursato qolob qolay ka timid ku beerso moogi waasaas Soomaaliyeed ku beeri oromadeedii bay noqon Tigray buu noqon qoladeedii bay noqon moogtahay waasaas qola ay uga caana yar tahay ma jirto qoladii marka anfar ahayd sanadkan guri wax ka weyn la galiyaa dilaaca maash waasaas wax ka weyn bay galiyeen qadiyadoodii waasaas qadiyada inay gali karin ay ku cayuuqeen qola aan ooyeenina anfara ma jirto tii Eritrea way ooyeysaa oo dulmanahay aydan bahaysaa tii Djibouti qandha wax laga saaray joo ayna dhihi karin tii Ethiopia waatan hadda labada geesba ka holcaysa dhankana Tigray uu qandha ku hayo sumoog Tigraygina nabad ma dhaxtaa leh oo hore kala dhinteen waasaas dagaalka waqooyiga igu culay ha oromada tuulooyin baa dhaxmaray xagan awaashiya dhulkaas tuulooyin baa iyagana dhaxmaray oo qadhal iskaga saaray oroma ka haysata hadda ka qabsatay oroma hadda ka qabsatay afar marka meel u fayow oday talxub u taliyaan ku mar meel u fayow afar sanadkan ma jirto waxayna u eg tahay sharciyan deegaanka Soomaaliya ka tirsan dhulka soo moog wareegta xukuumadeed ma lagu wareejiyay baarlamaan lama horgeyn waasaas cadayto aan dhufi iyo garbaciise baarlamaan lama horgeyn baarlamaan federaal lama horgeyn baarlamaanka deegaankuna deegaanka Soomaaliduna muuna saxiixin oo muuna ogolaanin sida daraadeed sharciyan awood military ma laga haystaa sharciyan deegaanka Soomaalida ka tirsan yahay awoodii federaalka ee bixisay inay soo celiso bay hayde haddii loo maray in awoodda deegaanku ay soo celiso oo ciidan ahaan lagu soo celiyo waa wax lagu guday aad baa sax waxay noqonaysaa marka in kolkii ciidanka Soomaalida uu gacanta ku dhigo sharciga federaal isla aado iyadoo dhulkii la hayo dhulkaasi laakiin magtiisi wuu qabaa maxkamada macna inta naftoora ku maqan inta wiil Soomaaliyeed ku maqan inta ciidankii aynu dad lahayn ku maqan inta nafar ciisa oo shacab ku maqan inta dad shacab oo la xasuuq ku maqan lama xisaabi karo marka waxayna ka fursan dhulka in la soo celiyo isuma dhigmaanba wadankeena dhanba inaynan marka inaga meelas ku jireen dadka lagu qabsan ha inaynan dhulka qabsanin inaga meelas baan galeynaa dhulka in la qabtaa lagu qasban yahay marka waxaan rajaynaynaa dhulkaasi in la qabto ciidanka Soomaalidana guul baan u rajaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo saaxiibayaal
مركز اليقين للقرآن الكريم وعلومه مراكزته كلا مدن مركز اليقين معناها بكجرو ومدن لما هالشيء وميش ربتين مدود السويسين مولا يدن كسمة ما شاء الله لها مركز اليقين ونيروبي كويا لو حب الشدة وجيسينيا إنه أسكر قيب أونلاينها oo lagu barto xifdinta quraanka kariimka hingaada carabiga ee Soomaaliga ka sixida carabka tafsiirka quraanka kariimka ducooyinka ahadiista iyo mutuuntii kale sida fiqiga waxay faahfaahintaasi dheer kala xiriir nambarada shaashada ka muuqda